ظالم iyo madluum wax la yiraahaa jira. Dhaalimku waxa waaye ninka dulmilowga oo runtii ummadda Soomaaliyeed dhibaatadan inayna ka bixin raba. Madluumkuna waa midka loo hadlaayo haddii marka dhaalimkii uu u hadlo madluumkii ninkii dhibanaha ahay haddii uu u hadlo ninkii dhibaateeyay arrintaas oo arrin aan la qaada karin shacabka Soomaaliyeedna in looga digo arrimo loo baahan yahay. runtii waxaan marka dhigeensaday oo mar walba aad arkaysaa in si qaldan shacabka Soomaaliyeed in loo marin habaabiye la rabo sida shalaba aad arkayseen arrimaha madasho ay ku dhawaaqaysay oo ay ahayd mid si gaar ah dawlad u dhisayna midna ay ahaaday hadalladii alqaafa oo aan ku habboonayn in meesha laga yiraahdo oo aad isdhihi karto fasahaad ayaa ka dhala karta oo la xiriira la dhihi karo arrimahan hadda taagan oo dhibaatada ku socda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed aan ku habboonayn idoo dhibaato ay haysato oo ay ku dhacayaan kufsi iyo waxyaabo dil aad iyo aad maanta shareecadeena islaamka ku weyno adduunku waxa ugu weyn oo mataqaana laga dhiidhiyo oo shareecadeena aynan ogolayn ay kamid tahay in haweenka Soomaaliyeed lala tiiraanyoodo ay ahaaday in haddana hadal la qadafa halkaas la soo geliyo shira socda shir siyaasadeed waaye maslaxa Soomaaliyeed la raadinaya waxa loo baahan yahay waxa waaye dadka inaad isu dhaweyso oo aad martaqaana aad samayso inay heshiiyaan laakiin inaad colaad ugu baaqdo oo aad markaas tusaalo in dadka inay dadku kala tagaan oo is afgara waayaan inaad dhiiri geliso inaad digtooni aad ka dhigto dalka Soomaaliya digtoonidiisi adoo waa u shaqeeyaa leh inaad dignin dhibaato keenaysa aad sheegto taas Ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay qul istahzi'u qul kullu istahzi'u iska jees inna Allaha mukhriju ma tahdharuna Ilaahay wuxuu soo saaraa waxaad ka digtoontihiin ayuu soo saaraa haddii marka mar aad adigu digtoonida aad bixinayso ayna ku dhisnayn xaq ayna ku dhisnayn maslaxa guud oo ummadda Soomaaliyeed ee digtoonidu ay sheegayso aniga sida aan rabo oo aniga mataqaana aan shacabka ku hagardaamaynayo haddaan la yeelin ka daranaa dhacee waxaas jeesa la yiraahdo haddaad iska jeestana oo aad shacabkaaga iyo dalkaaga aad ku jeesto iyo dhibaatooyinka heesta Ilaahay marka waxa uu og yahay waxa aad adigu digtoonida tilmaamayso waxa aad adigu rabto oo ka digto oo laga digtoonaada aad leedahay oo adiga aan waafaqsanayn danta guud Ilaahay waa soo saara shayga aad ka digto laga digtoonaada aad leedahay adiga ayayna dhibaato kaaga imaahay maxaa yeelay inaad ku jeesto shacab dhibaataysan ee aad inay khatar haday wanaaga ay aadaan inaad marka xumaanti ugu goodiso oo markaas aad dhahdo adiga haddaan saas la yeelin saasaa dhacaysa sida dhacaysana ayna dalka iyo diinta
iyo dalka iyo danta Soomaaliya ayna u rooneen waxay noqonaysaa wax oo mataqaanaa ciqaab ay ka dhalan karto shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay fiiriya qofka shala muxuu ahaa muxuu sameey jiray taariikhdiisu maxay tahay hadda muxuu rabiyaa maxaa laga fila karaa su'aalahaas in la isweydiiyaa loo baahan yahay maxaa yeelay hadda shiraa socda shirka waxaa loo baahan yahay tawfiiqo inay ka timaado in la isfahmo in nidaam dimuqraadi oo dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ay wakiiladooda doortaan loo baahan yahay in la yiraahdo marka tira yar hadaynan codayhiin haddii aynan mataqaanaa cid aan gada karo ayna codayhiin haddii aniga waxyaabaha danta khaaska iigu jirto oo ka qayb galka shacabka Soomaaliyeed aniga dhibaato igu yahay adigu haddaad leedahay Soomaaliya dana ugu ma jirto dad tira yar inay codeeyaan waxa loo baahan yahay habka ka qayb qaadashada oo majority-ga oo shacabka Soomaaliyeed ay siyaasadda ka qayb galayaan oo wakiiladooda ay dooranayaan ayaa danta guud oo Soomaaliya ku jirta waana midda oo qabto shareecada islaamka iyo dastuurkeena